waa Leila Cali Cadaan booqashada telefishinka aan soo booqdana waxa ay keentay horta dan iyo daruuf ay keentay meeshan saa ii jeedid horta gabar Soomaaliyeed maamo Soomaaliyeedna waa ahay muwaadinad oo amisom u shaqeyso intaasoo sana volunteernimo ku soo shaqeynayay ilaa haddana waa wadaa shaqadii aan shacabka u hayay iyo dawladeeda sharafta badan leh marka meeshan daruuftii keentay waxay tahay horta tacadii ay amisom nagu haysaa jirto oo badan oo madaxda aysan ogeyn aan rabaa inaan madaxda ku baraarujiyo oo xaqeenana looga qaado naaga badan waxa jiro horta ay xoog ku haystaan oo meesha u degan oo ilmo ay xoog uga dhaleen aan dacwo karin oo meelna aadi karin kuwa waxa jiro macnaha oo guriyo meesha ugu degan iyo kuwa taa hotel ay la degan yihiin adiga marka hadaa say rabaan aad u yeeli weysid waa lagu soo buriyaa aniga waxaan shaqo bilaabay 2014 kan shaqo bilaabay waxaan qaban jiray language assistant waxa la dhahaa jiro oo macnaha volunteer aan ku shaqeynay laakiin oo turjubaan af Soomaali ahaan hadii la dhaho dadka shacabka luuqada ma yaqaaniin waa ina adiga u turjubaantid qof bukaana imaanay for example ina dhakhtarkii u geysid waa ugu turjubaantid daawada loo qoraa u explain gareysid oo u sheegtid kabacdi madaxa imaanaysa oo dawladda ama askara imaanaysa inaan nimanka taliyaasha u geysid waaye xaqiiqiyan hadii la dhaana shaqo waan haynaa oo sax waa shaqada way adag tahay ku jiro anagoo gaariga ku jirnaa qaraxna loo dhigay qaraxiya horta ku dhaawacmay oo madaxiiga taa laba qayb uu ku noqday daryeelkii hadda loo baahnaa kuma helin oo ilaa hadda dhaawaci waan qabaa oo xanuunku waa igu soo kacaa inta wax kaaga ma qaban karnaa ideen way qaadeen horta wadankooda ay geeyeen intaan wadankii ku maqnaa isbedel dhacay oo ani markaa inta ka tagay xiradan dhex degnaa banaanka ma degnay subhanallah banaanka markaa ma sii wadi karno muqaal aniga aad yani qalbiga u taabtay ka qof ahaan ka shakhsi ahaan waxaan jecelahay horta muqaalkan inaan yani horta kula wadaago anigoo doonayo yani horta sida dhabta ah iyo waliba maalmahan aan ka soo hadlaynay xalane xaruntaas يعني آدك أقاب كدرن يولي بدك الصومالي نقول دلميو كدقنهان كفعل هانا نقول بدك مفعل أنا آد أورا لي شعب الصومالي وعندنا إن إتوس يتابسيب عن مقال كان عن كوجوسو كبيو أرتو حنجعلنا مقال كتير نقول قل إن مقال من اللي رجع سيسا ولي وكبر عندرت يولي وكوب بدن وهذا يكشف كيني الصوب اللي ده هاي ويدلميه مالي الدعوذان إيمانك الدعوذان ما يقنا ودد صومالي ما كمان تفيرسي آد وظلم وليبو ظلم إياك أي إزجيستين أي ما تلاقي عمل مرينايا مدح ملاي ما إلها صومالي حلبانا ما إلها وزير ما إلها ودد دنا هذا يظروفه إياك هستو بنبنانيا ذا وحوي كبنان دولالين كدولالو إني بحسدان كري ويمادين ما أنت ما أي جرتو نين دارا يعني وحاول شعب ويمد وقولي بدورة شعب إنه ضرب وحي كلها هاي قفك إمارة يدن شخصي إنه سنو إيمانين أي كلها هاي وحاول يمد دن شخصيات وإسجا شخصيات دي ساعة ما ده حدا ما أنت صومالي صومرته يرقي وين بلبركي كدب وحايدين شيء تاريخه حتى دب وأغرسه وحدريمي كرتا إن ما أنت الشعب وحدن يسنوه صالح وكمان أخصيه مدحوينه والمكسو يستاجايو وكسو يستاجا أصدق ضدك قلبي يعني وحاول قلبي يضوضا يعني قلبي جدع سرايو دون أيو إن ضدك الصوماليات ما أنت يعني ريالة تيجي جيت توكا جنبيو كنت معناها أوهس مري عند ذا كابل معناها أنت أوهس جريو حد وتينا بنت أوسو يعني ويسقوا يعني بين عيتها إنه قرنا صوماليين وضد قلبي جدع مروا المحيلين waxaan oo dhalanayso nabad baan noo iimaanayso waxaan noo yimid kii nabad noo keeni lahaa waxaan noo yimid kii maanta runta Soomaalida waxa way ka dhacin lahaa hadaba laakiinse su'aal mi isweydiisay oo waliba ku saabsan waxa anaga aan ognahay oo waliba Soomaali ahaan maanta aniga wiil dhalinyaro maanta halkan ka hadla adiga idaawanayo aan ogahay inuu madaxweynaha hadda joogo iyo kuwa kale oo soo maraybo aysan ogeyn ma kula tahay la kala wallahi وأوجيهن بس وحي أوجيهن إن ماشي عسي فائدة الدخل كسو قردرتين أوجا مسيهن مدحوينها شعب كالصوماليات
ولي بدتكم ما أنت معمولايو أيهن شعب سومالي إذا أجانب أنا هين ما أنت عامي صوم يولي بكوا كلا قرن حتى كذا أنا سكت لكن ولي بقى أمليس نجاس إني كركو كوس ويرن ده إن عرض ده كركو كتالو إن ما أنت قبلي سوماليات شرفت لها لوبا هنا حتى ظروفها درتو إللي قدايو ظروفها إللي قدايو إن ما أنت جسمي هان ما أنت أي دهر وكوبا هراي يعني حتى إلى مش قينيسي هدي يعني أنيا ما أنت عادي قنعني قبل هاد كل هذا وقبل سوماليات هوية سوماليات ولي بإن بدنا كسو شقينيس حالنا وحين نوقش كينيسو وواحد مدة أن كلها اللي عقلها حالنا موقتها وحا كجرو حالنا موقتها هرت حالنا لغوش ويعني وقوم نوعيه سيدين أطالع شعب كصومالينا فكرة أي كقبان ماشي عسي هرت وامح ميس ويدي صوت إن بدو حندوراي بل إنا نكون فهنسيو أنا فرصة عندك كجفة إلى سنة وحندورا المقالك إنا نكون فهنسيو حالنا وقوبت هذا سيدي قبلنا نكون شيء يسو نخن حمضة وجبنا الصومالية ما أنت كجرتو وقوبت أي كسو إفبحضو وليبا أيضا ما أنت مدحر الصوماليين أوجيهين إن ما أنت نخن حمضة وجبنا هالكاس أي كتماتو إن الصومالي ده وحاول نجريان إن ما أنت وحاول أرنتان أي سمين أيان أي كلك عن حليه تصاري رجعنا كنا قصية أمي صوم طبعا تلقوش شيء مقالة المقدش ممكن ودوين كمان أمر أيان وحال الله حرا الشعب كالصوماليات اللي الدولة إنه صنكي سكر أتاجو ولي ممكن وضد ما أنت أمر أي عم صومت إني عليك اللي جوجيو ولي ودوين كلا نحس تاجيو لدي لها شعب كان كم حقوق بدنين نحس على نحس عن إنسان والله كي كوجيران لقلا مصدق الله هن وحوي وضن كوضن صوماليات إن عقد حبح لدي لها أيها واحد أركيس الصومالي دي إن ويل يرير وضد أي جران درتد إن معنا وجود جرايا وضد جراي درتد وعلى ليه قرح وهرا لقيته جرايا واحد أركيس إن يعني شعبك بناء كنا يكون الميين ومقالة يعني وحوي لام يدي الوجود لا الإسكاجد لا يو لا ضل منها درتد دتك مع أنت حماد الوقوف فينا يو إن جدا هدي أي تكتر حرمها سعيتك تو حن كا يقولي بعد ما يسيد إن كوكار صومالي ما أنت أي شرفت صومالي أوي بسدين إن ما أنت حمانتا كجري صوماليات إن ما أنت يكا أي أويهين إن لفافيو إيرالي كيهين أي واحد أركز إن هذا لكود الميين كمان وحيد التواصل عكسو شقينا حلنا دبا حلنا بحكي قبليس وعيش يكتي إن يعني ترجوان أي كأهد ماشاس عمي صومت يحاول ترجوان وهي صومالي ده مادام ماشي سيدا الشيء أي جيران نقاتير وحاول كسعودان عمي صومت ووليبا ماشاس يكون داويان dad Soomaaliyeed oo mararka qaar kuwa yani waxa weeyso xitaa xarumaha isbitaalada magaalada Muqdisho yani xitaa ku yaalan magaalada Muqdisho ku dhaxyeelan qaarkood yani daawooyinka yaalin dhaqaatiirta aan joogin xitaa meeshaas maadaama ay joogaan kuwa qaar in laga codsado in halkaas la geeyo kadibna ay dhacdo in turjuwaanta u noqoto meesha ugu turjuwaanaysa haddaba maxay xarunta ku aragtay waxaan ku arkay tiri gabdho Soomaaliyeed oo xoog lagu haysto laga ilmo dhalay oo waliba meel ay u dacwadaan xitaa aan aqoon hadday madaxda u tagi lahayn afka furan lahaayeenna aysan aqoonin waxay ka hadlaan kuwa qaar waxaad arkaysaa taatuuyo lagu sawirtay tiri taatuugaas muxuu macnihiisa yahay marka taatuugaas waa calaamad ku tusinayo in qofkan aad adiga shabadeysatay xoolaha ma ku arki jirtay in astaan mise sumad la dhigan jiray yani waxaan maqli jiray lahayo astaan xoolaha lagu dhigtay yani xoolaha in qof walbaba astaan ku garto ku samaysan jiray Soomaaliya hadda waxay maraysaa in qof walbaba astaan lagu samaysto gabdhii xoog lagu haysto wiilashii yani banaanka askarta Soomaaliyeed maanta ay ku leeyayaan in Soomaalida dhaxdeedii in maanta saas laga dhigay yani gaaladana waxay doonayeen oo waliba dhagartayna noona maleegayeen oo waliba in badan ay ka fikirayeen way ku guuleysteen laakiinse aniga fikir ahaan waxaan arkaa horta muuqaalkan intaan soo qaadin ka hor waxaan arkay dad badan oo Soomaaliyeed oo ka hadlay oo waliba arrintan wiilkii maalin markii la xiray Ashraf xaruntan xalana inay su'aalo badan ka yimaadeen oo waliba ku saabsanaa yani waa maxay xalane waxa dadka Soomaaliyeed ay og yihiin balse madaxda Soomaaliyeed maanta ay iska indhatirayaan ayna hadana ay iska dhigayaan waxayna ogeyn ay dadka ka dhaadhicinayaan xaruntan inay tahay xarun safe ah waliba dadka Soomaaliyeed aan ugu dulmin balse hadda gabadhan waa hooyo Soomaaliyeed ma been bay sheegaysaa ma waxay ka been sheegaysaa gabdho Soomaaliyeed oo waliba xarunta ku jiro u baahan cadaalad in loo fidiyo maadaama kuwa qaar xitaa duruufo dartood macnaha duruufo yani iyaga maanta
aysan awoodin nolol maalmeedkooda dartood ay macnaha u galeen xaruntaasi ee weliba nin amisom oo madow ah inay maanta waxaa weye hoos jiiftaan oo maryaha ka dhigo oo weliba duruuftaa darteed ayagoo doonayo banbanaanyada ka bannaan in loo buuxiyo bal su-aasha ah aakhare la weydiin doono miyaysan ka baqaynin kuwa maanta madaxda ka ah miyaysan ka baqaynin aakhare haddii la tago kuwa maanta u nacamleynayo waxaa weeye xitaa aysan ka baqaynin hadhowti kuwa soo doortay iyo kuwa doortay iyo midka la doortaybo in aakhare markii la tago ilaahay hortiisa kumanaan sano la hortaagnaan doono weliba ay dhici doonto in xitaa la weydiiyo maxaad kaga faa'iidaysatay inta opportunity mise aan ku siinay fursaddii ahayd inaad dadkan cad hogaamiso maxay tahay dadka Soomaaliyeed iyaga laftirkooda waxa kala gudboon arrintan ku saabsan ee ah in shacabka Soomaaliyeed maanta aad ay u dulman yihiin weliba loo baahan yahay dulmiga in ayaga gacmahooda iskaga dulqaadi karaan haddaba say iskaga dulqaadi karaan maanta arrintan aad u jeedid iyo kuwo badan oo magaalada Muqdisho ka jiro oo reality-ga in la taabto loo baahan yahay waxaan isku kala xigsanay anagoo leh qabiil hebel ayaan macnaha waxaan ka doortay qabiilkayga qabiil hebel yani waas aragsannahay meel baan iska aragsannahay madaxweynaha wuxuu ka soo jeedaa beesheeda beeshan kale waxay ka mucaaradayaan markii fikrad saliim laga dhigto in la dhaho waxay ka mucaaradayaan madaxweynaha inay ka xun yihiin inuu madaxweyne noqdo waxay ka mucaaradayaan maadaama madaxweynaha uu meesha yimid waxyaala noocaas oo kale ah haddaba marka fikirkaas yaa dhaliya marka fikirka qabiilka ideology qabiilka ah yaa nagu dhaliya yaa nagu fidiyay dabcan taariikhda dib u akhrisid oo weliba aad dib u baartid waad ogaan kartaa yani ideology-gan waxaa la yimid niman ka kooban 11 yani waxaa weeye lagu sheegay inay suxufiyiin ay yihiin ka yimaadeen galbeedka oo weliba wadamada maanta galbeedka yani westernka meelo badan kasoo kala jeedaan oo weliba markaad fiirista taariikhooda aa akhrisid ku fikireen say u kala geyn lahayn Soomaalida waxa kaliya Soomaalida u kala geyn kara inay tala ogaaday qabiil waxa kaliya maantana dayacan heesto inaan anaga isku sababna aad u malaysid waa inay qabiil tahay waa inaad xitaa markaa shaqo doonanaysid lagu dhahayo yaa tahay yaa ku soo diray xaggaysa ka timid qabiilkeena tahay in su'aalaas lagu weydiinayo laakiin aan lagu weydiinaynin maxaad baratay jaamacadda ka soo baxday iyo cilmigaaga muxuu yahay waa waxa maanta anaga gacmeena ku kasbanay marka inaan nafteena aan eedno nafsuna inaan dhahnayd ma ahayn inaan dhahno madaxweynaha xasan sheekh xasan la yeelay ma ahayn laa kalla wallahi aakhira isaga su'aashiisa gooni baa loo weydiinayaa adiga laakiinse ka qof ahaan su'aasha lagu weydiinayo waxay tahay adiga naftaada waqtigaaga iyo cimrigaaga maxaad kaga faa'iidaysatay maxaadna dadka waxaa weeye inta aad yani waxaa weeye dadka aad daadlay aad ku soo kordhisay waa su'aalaha ugu badan ee aakhira naga horreey dunida laakiinse inaad ogaataan inay tahay daartii aan qof walba ku raagi doono bal muuqaalka noo laagire subscribe noo saar nagu soo biiri haddii aan u cusub tahay sidoo kale muuqaalka wixii ka dambe waxaan ku leenahay salaamu calaykum waraxmatullah